Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena kusoo dhawaada mar kale iyo cashar cusub. Waxaan sii dhamaystiraynaa casharkeena hore ee recycler view-ga. Saa ujeedaan recycler view-ga waxaan hadda scroll ku sameynayaa recycler view-ga culeys aad ayuu wataa. Waxaan sameyn doonaa inaan culeyskan ka baabi'ino anigoo isticmaalin library banaanka ah. Waxaan isticmaali doonaa glide markaan isbarbardhigo labadan list hadda fiiri midkaan markaan scroll ku sameeyo speedka uu ku socdo markaa aragto aad ayuu ugu duwan yahay marka loo barbardhigo midka hore aan isticmaalaynay image resource-ga fiiri markaan scroll-ka jeedo culeys aan caadi ahayn waa haddii marka aad kusoo bandhigaysa data fara badan kumanaan millions haddaad kusoo bandhigi rabtid suuragal maaha arrinkaasi inaad isticmaasho image resource-ga uu leeyahay android-ka si marka arrinkaas aan ugu gudubno waxaan isticmaali doonaa glide library. Sidoo kale waxaan sameyn doonaa profile-ka aan sameynayno waxaa waaye sida Facebook oo kale waxaa ujeedaa hadda inaan furnay Facebooka dad badan ayaa waxay soo dhaheen neo Facebook ma isticmaalaysaa maraan screenshot ka qaaday aan soo post gareeyay social media aan soo dhigay dad badan ayaa i weydiiyey soo marka design-kan quruxda badan ayaan sameynaynaa user-kii lagu dhufto information-kiisa ayuu soo qaadaa tusaale ninkaan markaa ku dhufto sawirkiisa iyo magaciisa iyo description-kiisa kuwaan kala design ahaan aan sameynaynaa data aan soo akhrinayna maaha laakiin waa isticmaali kartaa data oo database kaaga imaaday really aad ayaan ula dhacay aniga adinkana waxaan rajeyn doonaa inaad la dhici doontaan insha allahu tacaala design-kan from scratch ayaan ka bilaabeynaa with no escape step insha allahu tacaala waa sii gudagaleynaa let's go ahead and get started. waxaan sii gudagaleynaa marka cashirkeena waxaad soo furtaa projectkaaga hore aan horey u sameynay haddana waxaa ujeedaa in markii click loo siiyey inaan soo bandhigaynay toast ku saabsan userka click la siiyey marka intaan gudbin gudbidda another activity oo profile-kii aan sameynin waxaan marka hore iska xalinaynaa ciladana haysato oo ah in sawiradeena ay yihiin sawiro low ah oo aanan soconaynin sida hore aan idin tusay marka sawirada si aan speed ugu dhigno waxaan ku qasbanahay inaan isticmaalno labada shay ugu caansan waa Picasso iyo glide so waxaan aad u refer gareynayaa inaan isticmaalno glide because aad ayuu light u yahay si glide aad u hesho marka waxaan sameynaynaa google aad waxaa leedahay glide library github ayaa ugu horeeyaan jeclahay okay saa ujeedid github linkiyaanaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato waxaad imaanaysaa qaybta saa ujeedid waa isaga download waxyaalan mapping sameyso something so waxaan sameynayaa waa soo wada qaadanayaa labadooda waa library glide waxaan tegaynaa sida caadada ahayd waxaan tegaynaa build scriptska gradle sorry build gradle kadibna halkan ayaan dhigaynaa glide library okay kadibna control v markaan aado waxaa leedahay synchronize I'm synchronize now wuxuu qaadanayaa about 1 minute waxay ku xirantaa computerkaaga speedkiisa siduu uu yahay ayay ku xirnaan doontaa okay very good waa uu noo hagaagay waxaan tegaynaa marka hal meel wax ka bedeli doonaa keliya inta kale sidooda ay ahaan doonaan adapterka ayaan tegaynaa saa ujeeda hadda waxaan leenahay holderkii caadiga ahaa noogu soo bandhigaan leenahay si marka arrinkaas aan ugu gudubno waxaan leenahay comments ka saar waxaan marka kusoo bandhigaynaa sawirka hadirtaan geed maxaa ku dhahaa glide ayaan kusoo bandhigaynaa si glide aan kusoo bandhigno marka waxaan sameynaynaa glide ayaad leedahay glide okay library ama object glide waa sheegtay waxaa leedahay dot with macnaha xagee kusoo bandhigi rabtaa contextiga lagu soo bandhigi rabo sawirka waa xagee waxaan leenahay contextiga adiga u baas markaas adapterkan meelo badan loo isticmaali doonaa marka waxaan leenahay maadaama aanan ka warhaynin shaashada lagu isticmaali doono adiga isxali oo shaashada adiga sheego kadib maxaan soo bandhigayaa download waxaa soo load gareysaa sawirkii aan u hayay haddii aad meeshaan fiiriso waxaan ka qaadanaynay my users.user image ayaan ka qaadanaynay waxaan leenahay marka
my users dot user image ka qaado. Okay, waxaa dhahday glade isticmaal shaashadii markaas lagu dhiibo sawirkaas soo load galay. Okay, maxaa marka sawirkaas markaas soo load galay intee kusoo load galaynaa marka halkee ayaan kusoo load galaynaa kadib waxaa kusoo load galaynaysaa into waxaad kusoo load galaynaysaa holderka holder dot user image. sababta waxay tahay hore ugu soo shiiday waxaan dhahaynay holder user description holder dot set text meeshii aan ka dhihi marka set image resource-ga wuxuu isticmaalaa midka default-ga android-ka. inagana midkaan uma baahani waxaan u baahanahay glide inaan kusoo bandhigo. marka glide sidaan loo isticmaalaa waxaa sheegaysaa object-ga kadibna intee lagu soo bandhigaa xaggee laga keenayaa datada kadibna waxaa leedahay holderka oo aan kugu soo bandhigay datadaas waa kee. so marka intaan ayaa kugu filan project haddaan run dhaho again what happened fiiri hadda culeyska uu yahay waa ujeedaan markii uu dib usoo kaco projectigan speedka uu ku soconayo arka sawiradan hadda about 1 minute 1.5 to 3 computerkaaga speedkiisa ay ku xirnaan doontaa soo kicitaanka android-ka. haddii aad computer cusub soo gadanaysa waxaan kula talinayaa computer hadiskiisa uu yahay SSD inaad raadsato sababtoo ah SSD waa ka speed badan yahay computerada HDD-ga ama computerada hore la isticmaali jiray hadiskiyaasha. RAM-kaagana haddii aad computer cusub soo gadanayso waa inuu at least 16 ama 2 at least horta 8 waa inuu ahaadaa. haddii aad well performance arabtana waxaad kula talinaya inaad isticmaasho 16 GB. okay wuu usoo kacay hadda waxaan sameynaya marka scrollki aan sameynaya. okay let's see scrollka siduu speed iyo hal mar aan sii daynaa scrollka siduu speed u noqdo waa ujeedaa. okay very good. so marka haddii aad u baahato data oo tan ah ama kumanaan millions rows systemyada aad sameynaysaan haddii ay yihiin systemyo data badan soo aqrinaya ama data badan soo bandhigaya kuma anfacayso inaad set image resource-ga uu android kaliya aad isticmaasho. so waxaan kula talin lahaa inaad isticmaasho glide ama Picasso. okay insha allah casharada soo aadan ayaan Picasso tijaabin doonaa laakiin for now glide ayaan ku haystaa ama aan kula talinaa inaad isticmaasho because aad ayuu u speed badan yahay marka loo fiiriyo midka android-ka.